الله وين ربي بوحداد وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقة لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaa noo soo socday casharadeenii taxanaha ahaa ee aan marba magacyada ilaahay mid ka mid ah sharaxaad kooban aan ka bixinaynay intii ilaahay noo fududeeyo. waxaan hadda ka hadli doonaa magaca ilaahay ee ah al-Fattaax. Allah subxaanahu wa tacaala waa alla khalqigiisa u fura, markasta waxay u baahan yihiin u fura, albaabada ay u baahan yihiin u fura, wixii qalbigooda gelaya oo khayra u fura, wixii dhibaato ah oo haysatana siday uga bixi lahaayeen u fura. sida darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala waa allaha al-Faatixa ah ee khalqigiisa wax kastay u baahan yihiin u fura, asagoo aan cidna u wakiilanin, cid kale oo u dhaxaysana aysan jirin. wuxuu furaa albaabada khayrka, wuxuu furaa albaabada naxariista, wuxuu furaa albaabada risqiga. addoomihiisa oo dhanna wax allaalihi waxay rabaan buu isugu keenaa, waxay rabaanna wuu u hagaajiyaa. qul yajmacu baynana rabbuna thumma yaftaxu baynana bilxaq wahuwa alfattaaxu alcaliim. ilaahay subxaanahu wa tacaala marka wax dhibaya oo ah inuu khalqigiisa wax u fura ma jiraan. siduu doono buuna ugu furaa, siduu doono buuna ugu fududeeyaa. mararka qaarna siduu doono uu irsaaqaa. walow ana ahla alquraa aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard wasica rabbina kula shayin cilmaa cala allahi tawakalnaa rabbana iftax baynana wa bayna qowmina bilxaq wa anta khayru alfaatixiin وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إلهي سبحانه وتعالى مرك خلقيسا وحو أفرا وح الله لأي وحا أي باهيهم بأفرا وحيابا إلهي أفرا يا محاكم ده رزقه أفرا أبار مرك يكون عضو إلهي وحو أفرا يا برواقو وعركو أفرا يا عرك مركو أفرا الرابع أو إيمانا يا دلكي أفرا يا مركو دلكي أفرا نباتاتك يوحي إبارا لهايين بأصاب بحيا دلك في عنبه هلايا نولر في عنبه هلايا. haddii xaaladu ku adkaato oo ay dagaal ku jiraan ama dhibaato haysatana waxay akhrisanayaan ilaahay inay dhahaan rabbana iftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi wa anta khayru alfaatixiin. markaasna ilaahay wuxuu u furayaa guushii, wuxuu u furayaa jidkii culayska haystay ee uga baxayaan. waxyaabaha ilaahay gaarka u haysto bayna ka mid tahay inuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala furaha u hayo وعنده مفاتح الغيب. waxyaabaha anaga aanan aqoonin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaliya uu garanayo, asagaa garanaya waqtiguu keenayo, asagaa garanaya qofkuu siinayo, asagaa garanaya sida loo isticmaalayo. xataa nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa waxaa laga wariyey dadkuna noocaas inay u qaybsamaan. waxaa jira xadiis dhahaya dadka waxaa ka mid ah dad sidoodaba khayrka fura shartana xira. waxaa kaloo dadka ka mid ah dad sidoodaba sharta fura khayrkana xira. wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam marka aada u ammaanay kuwa noqda dadka gacantooda khayrka loogu furo, wuxuuna aada iyo aada uga dayriyey oo hoog iyo dhibaato ugu yaboohay haddii qofku uu noqdo qof gacantiisa sharta lagu furo. sidaa darteed qofka waxaa la rabaa inuu isbaro dabeecadda ah inuu noqdo dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmahooda uu ka dhigo albaabo khayrka fura shartana xira. laakiin haddaa is aragto adigoo shar ka shaqaynaya khayrkiina celinaya, waxaa ogaataa inaad halis ku jirto oo xaaladaadu aada iyo aada halis u tahay oo aad noqotay albaabkii sharta khayrkiina aada xirtay. nolosha meel kastoo aad uga jirtana waxaa la rabaa inaad ka dhigato halbeeg. haddaa siyaasad ku jirto, haddaa ganacsi ku jirto, haddaa waxbarasho ku jirto, nolosha nooc meesha uga jirtaba waxaa la rabaa tallaabada aad qaadayso inaad isweydiiso waxaan aad samaynayso ma albaabkii shartaad furaysaa mise albaabkii khayrkaad aad xiraysaa. su-aasha jawaabteeda adigaaba hayeeba. tallaabada aad qaadaysana waxaa la rabaa inaad ku dhisto waxaan ummadaada ma u fiican tahay, naftaada ma u fiican tahay, diintaada ma u fiican tahay. mararka qaar markaad ficilka samaysa aad ogaan kartaa ficilkii aad samaysay ma albaab shar buu xiray mise albaab khayr buu furay. haddii marka aad adigu is aragto adigio albaabadii khayrka xiraya, albaabadii maxaanku iraahdaa shartana furaya,
waxaa ogaataa halaag iyo dhibaato inay kugu soo socoto. sidaa darteed waxyaabaha lagu ducaysta xataa waxaa ka mid ah masaajidka markaa gelayso inaad tiraahdo ilaahay albaabka raxmadda ii fur, allahuma iftax lii abwaaba raxmatik. markaa masaajid kasoo baxaysana waxyaabaha lagu ducaysta waxaa ka mid ah waftax lii abwaaba fadlik, ilaahay subxaana watacaala deeqdiisa iyo wanaagiisa inuu kuu furo. meel khayraha kasoo baxday, markaa gelaysana waxaa u baahantaha ilaahay inuu kuu furo, markaa kasoo baxaysana waxaa u baahantaha inuu ilaahay kuu furo. waxyaabaha lagu ducaystana waxaa ka mid ah albaabada aad furan doonto laftigooda inay noqdaan albaabo khayr, oo aad mar walba isku daydo inaad hesho madkhala sidqin wa makhraja sidqin, mar walba inaad jid saxsan aad ku gasho, jid saxsanna aad uga soo baxdo. waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala laga baryo oo qofka lagu garto inuu yahay qof wanaag ka shaqeynaya waxaad ku garanaysaa dhaqankiisa markaa fiiriso, dabeecadiisa fiiriso, maanta oo dhan albaab khayr uu furayaa, albaab sharna waa celinaya. haddaa aragtay laakiin qof fasaad ka shaqeynaya, dhibaato ka shaqeynaya, haddaad baarto waxa uu ku mashquulsan yahay waa albaabkii sharta ahaa dadka inuu ku furaayo, khayrkiina uu ka xiraayo. sidaa darteed waxaa la rabaa mar walba dadka inaad u furto albaabka hanuunka oo wanaagga uu ka imaanayo, albaab inaad abuurto dadka walwalka iyo dhibaatada iyo murugada looga saaro, inaad dadka u furto albaabka cilmiga iyo xikmadda iyo aqoonta. haddaad dugsi furayso, haddaad jaamacad furayso, haddaad dad wax barayso, waxaa kaloo laga rabaa dadka noloshoodan inaad ka shaqayso inay wanaagsanaato oo mar walba aad u noqotid qof khayrka iyo wax wanaagsan fura. waxaa kaloo ka mid ah inaad noqoto qof nolosha wax kusoo kordhinaya oo tiknolojiya kusoo kordhinaya, cilmi kusoo kordhinaya, oo ummadaada wax u furayo, albaab fiican u furayo. sidaa darteed adiga waxaa lagaa doonayaa marka koowaad naftaada inaad khayrka u furto, marka xigana ummadda aad khayrka u furto, ummadda aad khayrka la jeclaato, dhaqankaaguna uu noqdo dhaqan loo soo hiranayo oo laga akhrisanayo inaad tahay qof ka fogaaday wax allaale iyo wixii shahwadiisa iyo dareenkiisa la xiriira ama wixii diintiisa dhaawacaya ka fogaaday. taasaa marka waxay ku gaarsiin doontaa inaad noqotid qof ummadda u furaya wado fiican oo wanaagsan. dadkuna marka dambe waxay ogaan doonaan inay wanaagga kaa weheshadaan, sharta markay rabaan inay ka cararaan ay adiga kuu yimaadaan. haddii kalena waxaad noqon doontaa qof calan sida u ah inuu dhibaato ka shaqeeyo, dadka dhibaateeyo. inta badanna dadka dhibaatadooda ka shaqeeya adduunyaday ku arkaan abaalgudkeeda, dadka wanaagooda ka shaqeeyana adduunyaday ku arkaan abaalkeeda. wallahu tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wada taqaniini isaga waduudahan tashiga lala wadaagayne, isagan wuxuu doonayaba cidi la waastayne, waxba kama qarsoon oo qalbigu wahan hadduu yeesho, wixii weliba wow waadax iyo waasac maalinaahi, alwakiilu magaceesu waa warisaan dhimane.